halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed kusoo dhawaada meel kastoo adduunka aad ku nooshihiin maanta qodobo badan oo adag ayaan idin la wadaagi doonaa insha Allah ta'ala dalkan iyo dadkan horumar u leh intigaraadkayna oo aqoon-yahanka Soomaaliyeed waayo aragga Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed bulshada kala duwan waxaan ka soo aruurinay inaan idin la wadaagno insha Allah waxaan rabaa xildhibaanada oo si adag oo hufan ma arkino baarlamaanka hortiisa dood adag ka dhiibteen maadaama ay iskala sii taliyeen qaab maldahan inay message-ka noogu soo gudbiyaan xildhibaanada aad u jeedaan xildhibaano badan ay gambar gaabada ku fadhiyaan markaasna rabaan dalkan inuu horumar gaaro dhaliilayaan xataa qaab adag oo ma arkino federaalka iyo qaarkood dhaliilayaan haddana waxay rabaan inuu dadka dhiigooda daato lama rabo dadku haddii uu nabad helo oo la soo koro mar walbaba dowladnimada ay adkaato oo dhidabada loo sii aaso markaas ayaa laga doodi karaa insha allahu tacaala federaalkan aa ujeediin haddaan qaabka adduunka uu ku dhaqan yahay ununkana waa ku dhaqmaynaho dad caqli lahaa ilaahay naga dhig wixii nagu xumaada aan iska bedelno tartiibtayna NGO ayaa laga dhigin dastuurkayna aan dhammaystirano maantay gacan shisheeye naguma dhex jirto message-kaas ayaan u diri lahay baarlamaanka haddaan ka gudbo oo golaha fulinta aan u gudbo golaha fulinta waxaad qabateen istaraatiiji aad u dheer shacabka Soomaaliyeed meelay gacan xataa xuro ay aga doodi karaan meel horumar leh insha Allah ta'ala idinkana isbiritka iyo tanasulka aad wadiin iyo marmar mayal adeega uu fiican yahay inaad ku mayal adeegtiin oo dadkan balaamka uu leeyahay inuu si direct markaas oo ugu socdo insha Allah ta'ala aad ayaan idin dhiirigelinayaa haddii aan u gudbo ciidanka waxaan idin sheegi lahaa xoogga dalka Soomaaliyeed aad ayuu idin taageeraa bulshada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed haddaa idinka idin helin wax suurtagalaya ma jiraan sida mushaarkiina iyo darajooyinkiina dooda badan oo shacabka kala dhacmarayso insha Allah ta'ala in nabadda aan ku doodi lahaynay inaan idinka waa insha Allah ta'ala nabadda lagu dooday aad u jeediin idinka waa oo idinkula nasanayo wax badan aad gaarteen insha Allah ta'ala taas horumar badan ka sameeya daba dhilifka iyo musuqa nagu dhex jirana wuu dhamaanayaa idinkana la dagaalama ununkana talooyin badan iyo dagaal badan ayaan la geli doonaa insha Allah saas ayay ku dhamaanaysaa meeshaas ayaan aga baxayaa waxaan la tali lahay insha Allah ta'ala maamul goboleedyada idinkana dhaliil ayaa keenteen insha Allah ta'ala dhaliishaas waxa dooda adag ka dhacayso waa ujeediin tanasula waxba isbedelay insha Allah ta'ala meeshina ka sii wada meeshaasna dalka meel fiican maanta uu jooga insha Allah ta'ala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh